xogayaha dawladda hoose degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan Nuur oo wareysi gaar ah ku siinayay telefishinka caalamiga Star TV xafiiskiisa ayaa ka warbixiyay waxyaabihii uu qabsoomay sanadkii tagay ee 2020 waxa uu sidoo kale ka hadlay qorshayaasha sanadka cusub ee 2021 ay ka qaban doonaan magaalada Burco gaar ahaan dhinaca bilicda iyo horumarinta wadooyinka gudaha magaalada Burco. Marka hore waa soo dhaweynaya TV-ga Star aad baan soo dhaweynaynaa. marka hore Burco waa magaalo madaxdii labaad ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dabcan inaan bilicdeeda iyo karaamadeeda iyo sharafta iyo quruxda inaan intaba kor qaadno oo ilaalino oo ka shaqeyno waa shay daruuri ah oo nagu waajiba. dadka laftooda reer Burco waa dad wanaagsan oo way nagala shaqeeyaan oo gacan bay naga siiyaan. waxaana jirta mahmaha Soomaaliyeed tiraahdaa gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. haddaan nahay maamulkii degmada iyo golihii deegaanka oo kaliya anagu baa wixii kasta qaban karayna maaha wax jira. laakiin markaanu dadka reer Burco gacan ka helno ee ay gacan naga siiyaan waxaasi wax weeye waa suurtooda waana inoo hirgashaa. dadka reer Burco waa dad wanaagsan oo uga mahadnaqaynaa bilicda magaalada iyo town plankeeda iyo kor u qaadisteeda intaba insha Allah ta'ala waa laabaynaa inta ilaahay qoray halka joognana wasii wada insha Allah ta'ala hadaan u fiicanto meel waxan bay maraysaa. dadka laakiin laftooda reer Burco bilicdii taas aasha lafteeda ku dhex jirta wadooyinka waaweyn halbowlaha magaalada Burco ama faras magaalaha Burco inaanu kor u sii qaadno magaalooyinka kale ka sii qurux badnayso waa daruuri. iyagana geerishlayda ugu dambeysay waxa ugu dambeeyay kuwa scrapka iibinaya waxa ugu iibinaya kuwa qaboojiyaasha iibinaya waxa soo dhan waxaanu siinay waqti notiso bishii ka dhamaatay baa ugu dambeysay hawsha iyada ah lagu guda jira way hirgelaysaa. dadkuna wax weeye inay u dhagan nuglaadaan oo magaaladu way ballaaranta oo geerisho kale iyo furfurlayaasha goonayaasha magaalada iyo meel kale waa lagu shaqaystaa dhulka kale inay ku shaqeeyaan ayaan ku codsanaa iyagana insha Allah ta'ala. xogay sanad cusub ay kala gala sanadka cusub qorshayaasha sanadka cusub ee ku jira ee dhanka wadooyinka iyo bilic soo celinta magaalada Burco maxaa ka mid noqon kara? horta waa run sanad cusub baynu galay khayrkiisa Allah ina siiyo. waxa muhiim ah sanadkiimka 2020 ee dhamaaday sanadkaas kaliya 10 wadan magaalada gudaheeda bartamaha Burco faras magaalaha Burco 10 wadan ka hirgelin oo ka dhameystiray. waxaan doonaynaa iyaga inaanu sii laabno sanadkana insha Allah ta'ala inaanu wadooyinka culayska koowaad priority-ga siino inaanu sii laabno oo wadooyin ka sii waasacsan iyo ka sii ballaaran magaalada gudaheeda inaanu dhamaan ka hirgelino oo ay magaaladu isugu wada baxdo laami iyo wada muuqanaysa si ay bilicdeeda kor ugu sii kacdo. qorshahay taasi noogu jirta. waxaanu kaloo insha Allah ta'ala sanadka dambe sii sameeyna dawladda hoose gaadiidkeeda oo maadaama ay magaalo weyn tahay oo nadaafadeeda iyo qashinkeedu u baahan tahay 24 saacadood in culayska la saaro waxaan sii kordhinaynaa gaadiidka kala duwan inaanu iyagana insha Allah ta'ala oo miisaaniyada sanadkan 2021 noogu jirta inaanu gaadiid badan oo kala iibsano sida cagafyada iska rogooyinka kuwa cashuuraha qaada iyo wixii la mid ah inaanu kala sii kordhino tayada shaqaalaha iyo kor u qaadistiisa oo shaqaalaha dawladda hoose 3 meelood marka loo qaybiyo meel iyo bar waxa weeye nadaafadda ka shaqeeyaan. taa macnaheeduna waxaan culayska u saaray magaaladu waa magaalo weyn Burco sidan hore sheegana waa magaalo madaxdii labaad ee dalka marka dhismaheedu wuu sii badanaya wuu sii kobcaya population-ka ku nool oo sii laabmay maalinta ka dambeysay wuu soo kordhaya. intaas haday korodhan wax maxay kordhaya qashinkuna wuu la jaan qaaday oo sii badanay maadaama population-kana badan dhismiina badan. marka inaanu shaqaalaha nadaafadda sidaan horeba u siinay kaalinta koowaad iyagana aanu sii laabno oo gaadiidka qashinka guriga sii laabno oo tayadooda iyo tiradoodana kor sii qaadno oo waxyaabaha noogu jira qorshaha sanadkan insha Allah ta'ala hadii alla ka dhigo. Cabdi Qani Baafo telefishinka Star TV magaalada Burco.